السلام عليكم waxaan rabaa qof kasta oo Soomaali ah si dhalinyaradan loo badbaadiyo hore muuqaal u sheegay u duubay meel la gaarsiiseen laakiin dawladda Soomaaliyeed warqad yar ay soo saartay hadda si loo badbaadiyo dhalinyaradan Soomaaliyeed meel kale in muuqaalka la gaarsiiyo ay ka codsanaya tiirkii saarin waa 3 wiil 40 kalena waa dhimayeen ayagana isla tiirkaas u dhiman waa la daldalay waliba xitaa tiir ma waa toogasho oo xabad xataa ma oo nafta si fudud ku dhaafaysa xariga inta lagu xiro la daldal raba xogtana kula wadaagaya dalka Sacuudi Carabiga ka taagantaa magacyada wiilashan iyo qabiiladooda ama xildhibaanada dadka dawladda ku matala ayaan ku gaarsiin doonaa ama kula wadaagi doonaa muuqaalkaas shirgaray hadii aad nagu cusubtaan nagu soo bir aragtidana ka dhib qaybta hoose faalada una duceey dadka in Ilaahay ka soo samata bixi halkaas dawladihii kalena waa ay soo furteen laakiin Soomaaliya waa ay dadka soo deysan laada waa soo furteen waxa kala jeeda waa la soo siimana Soomaaliya laakiin talaab uma qaadin xogtana kula wadaagay aad ma santa sida aan xog ku helnay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiga gobol ku yaala oo dhalinyaro Soomaaliya oo 45 qof ay ku xirnaayeen dadkaas oo lagu helay in maandooriye ka ganacsanayeen ama dalkaas ay soo galiyeen dhamaantoodna Soomaali ay yihiin ayaa waxa lagu xukumay daldalaad in la dilo waana sharci u yaala dalka Sacuudiga laakiin si weyn uga soo horjeeda diinta Islaamka Soomaali kaligood ma ahan ajaanib kala jirto laakiin 45 qof ee Soomaalidu ahayd hal wiil oo kamida hore ayaa loo dilay الله نحرسته ولا دلدلي وركيس هراء عندك كوش شيء إنه حاذر الحلبان وهذه عندك كوش شيء حتى نسد حلان قفن يدين شيء دونا يصيدوا كله ضدك حلبان نضوه لا ديرة هاي دولة حلوين كهاي ماشان هدي جرت صومالي هدي الجفان جري ما أنت الرأينا واحد قش أو ضدك إسوبة باديان لقلب حي حبسك يكون جيرين دلدلان اللي دياريي لونا شيء ضدك وضعضان ويدر دارمان نلقو مقعابو عبد القادر محمود علي أفسوغ وحا حلبان وآه شيخ شريف شيخ أحمد وقلاه شعبك بارلمانك الصومالي كميدا مدعوني هو رأي دالك صوماليا يسوع كلا عبد القادر إبراهيم أحمد عداوي يساقنا وحا حلبان وآه حلبان محمد أبو بكر إسلو الدعالي وزيرك هو رأي أمني قرنك سيدو كلا وحا كجرا أحمد محمود إسماعيل عبد الرحمن isagana waxa xildhibaan u ah Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya anta waa 3 nin ilaaha weyn oo waaweyn oo siyaasadda Soomaaliya miisaan ku leh oo xataa dawladahaasi dhaxdooda galaangal ku leh wiilashii ay matalaayeen daldalaad loo diyaariyay ayaa xalay waxa la yiri dadkiina wacda ee dardaarma hadaa caruur ka tagteen hadaa xaas ka tagteen hadii deemeed kula leeyahay soo sheega dadkoodii soo wacin ayuu dardaarmaayo hadda wiil lama daldalin laakiin waa laga saaray meeshii ay ku jireen inay dardaarmaanna waa loo sheegay waxa u sii dhima maalin kale inay hadli doonaan oo sida aan xog ku helay sidii kuwii hore ama wiilka hore la marsiyay 2 maalin 3 maalin ay qaadanay marka meesha laga saaro in lagu daldalo hadii la rabana bariya laga dhigi karaa ayaga dadku ku taala laakiin 2 maray dadku soo wacaan sida xog ku helay wiilashaasi Soomaaliyeed 45 qof ay ahaayeen mid hore loo daldalay 3 waa kuwana 40 hadda wali meesha ku harsan waxay u baahan yihiin badbaado hadda koor markaan sidaan oo kale aan uga hadalnay dawladda Soomaaliya waxay soo saartay warqad wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka ee dawladda Soomaaliya ayaana warkaas soo saartay oo faahfaahin uga bixisay sheegtay in juhdi gelin doonto laakiin dawladda ayaa dadkooda halkaasi looga daayay markii ay madaxda boqortooyada dalka Sacuudiga la kulmay waxa kamid ah Itoobiya xog waxaan ku helnay Itoobiyaanku inay u tageen Sacuudiyaanku ay ku dhaheen diinta Islaamka Itoobiya dawladeeda muslim ma aha laakiin dad badan oo muslimiin oo laga dhaxilaa wadanka muslimiin badan ku nool laakiin xukunka ka hadlayna inta u tageen waxay ku dhaheen diinta Islaamka oo dhulkii barakeysnaa waliba ay ku yaalaan boqortooyada ma qabto in la dilo xeerkiin diinta muwaafaqsan Allah dood iyo siyaasad iyo diblomaasiyad wixii Itoobiya adeegsi dadkeedii waa Itoobiya loo soo daayay dawlado kale intood aan xog ku helin Ciraaq kamid ah oo Iiraan kamid ah oo Sacuudiga Iiraan wax ka dhaxay ogtiin ayaa sidaas oo kale loo soo daayay laakiin Soomaaliya waxa waaye madaxweynihii Soomaaliya wuxuu ku mashquulsan yahay xisbi oo furanayo ra'iisul wasaarihiina wuxuu ku mashquulsan yahay xisbi wasiirka awqaafta iyo arrimaha islaamkana warqad weeftaha oo dadka soo saara oo waalidiintu ku qancina marka dayacaadda haysata caruurtan Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed waxa waaye dawladoodii oo ka jiifatay madaxdii oo ka jiiftay iyo sidoo kale waalidiintooda laftirkooda oo ayagana marka ay 2 maalin jidka inta soo banaan baxaa warqad inta loo soo saartay qanacay
dadka aan badbaadino ilaahay wax badbaadiyo waa 14 waa 44 qof hadda inta nool oo saddex kamid ah oo lala baxay xalay oo toogay dilkii in lagu fuliisuwayo kuwii 40 kalena meesha ku jiraan horena qof loo dilay mudanayaasha siyaasiyiinta ah ee baarlamaanka Soomaaliya ku jira ee xirarka sarahayo oo aadan madow ugu horeeyo oo Shariif Sheekh Axmed ku jiro oo wasiir ducaale ku jiro ayagana dadkaas ay siyaasadda ku matalaan waxa la rabaa in dawladdu ku barashar gareeyaan si arrinta xal looga helo aad ma santahay aragtida nala wadaag muuqaalkana soo shirgaray amaana Allah